السلام عليكم أصحابتنا سباير سومالي soo dhawaada haddii aad nagu cusubtahay subscribe noo saara haddii aad nala joogtayna mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada ayaadan leenahay waadna ku mahadsantihiin ra'yigiina quruxda badanood mar walba aad channelkaad ka baxsataan maanta waxaan daawanay oon markhaati ka helnay ciyaar qurux badan exactly copy paste ciyaarta Arsenal ayaa lasoo copy gareeyay oo la keenay ciyaarta Old Trafford ha noqoto ciyaarta iyo qaabka ay u dhacday gadaal dambe ayaan ka sharxi doonaa waayo Manchester gool muhiim ay gaartay وانا رجينا قوة من أساسية رجينا إن شاء الله دان هاي مانشستر تاجر مانشستر على مركان سكاللايو عيارتنا يتها كهرة وحن صوب رجنا إيه الساداش عيارت قف الساداليو لا بقى فوق كمده نيجو جول سندونان لعقتهم كم $1 dad badan saadaasha bixiyay inkastoo shuruudihii aan sheegnay inaan marin oo aynan aadan YouTube keenan aadan oo kaliya ay ka bixiyeen Facebook waan u daaneynaa game kan sababtoo game ka dambe shuruudeedna wuxuu noqonayaa inuu YouTube ka aado qofka subscribe u soo saaro cadeynta uu noo muujiyo sida annaga aan ugu muujinayno cadeyntii waxay naga go'an tahay okay dad boqolaal dhan ayaa ka saadaasha bixiyay boqolkii iyo dhowrkii qof waxaa ku guuleystay 3 qof ayaa maarata saadaasha saxday laakiin naga ballanqaadka naga wuxuu ahaa 2 qof inaan maarata guddoonsiin doono sidoo ballanqaadka ahaa marka qofka ugu horeeyo ku guuleystay waxay ahayd Amira waxay noqotay guuleystii koowaad oo saadaasha saxay oo waxay dhahday Manchester United 3 Fulham 2 Amira wadankeena la joogtaa uma naan baahanin inaan qof da'yarna maadaama ahaa information keedan aan soo bandhigna oo maarata contact less aan maarata waxaan ugu wareejinay maadaama qof underage u ahaa qofka labaad wuxuu ahaa Maxamed Cabdina waa kana information kiisa dhameystiran lacagtina aan ku wareejinay lacagta laakiin markaan ku wareejinay ayaa waxaa jirtay arrin surprise oo dhaxday oo Maxamed Cabdi xagiisa runtii Maxamed Cabdi wuxuu la wadaagay markaan lacagtan u diray aan u hambaliyay guuleysta aan ku dhahay wuxuu dhahay haye erayga koowaad oo dhahay ii soo dir lacagta okay waxaan weydiiyay marka information aan kugu soo dir lahaa ii soo dir then waxay soo dir information kiisi si aan lacagtan uga hagaajiyo kadib muusan aaminin still qaabka hadalkiisa aan gadaal dambe aan ka dareemay ayaa lacagta markaan u diray wuxuu dhahay niyow aniga waxa kaftan baan u maleynayay markaa dhabbaa dhahay markaan u diray oo information kan weydiiyo aan magaciisa inuu iga saxaan hubiyay ayuu wuxuu dhahay wax makaarun baa ilaa aan kaftan baan u maleynayay kadib ayaa arrin waxaan ku dhahay kaftan meen arrintu waa run weeyaan xaqaad nu yeelataa guuleystiyaa tahay information markuu ii soo diray kadib wuxuu dhahay wuxuu ila wadaagay runtii ana dhiirigelinayaa wuxuu dhahay qofka social media ugu horeeyay oo wuxuu qolku ku hadlay ama ballanqaadku uu sameeyay oo fiye ayaa tahay even though uu ciyaartu u saadaaliyay uusan ogeyn qofkan ciyaartu iska saadaaliyay laakiin muusan ogeyn meesha uu ka saadaaliyay iyo lacagtan wuxuu ugu guuleystay ma ogeyn aniga kadib waxaan u diray video uu commentiga ka bixiyay ayaan u diray sababtoo iskuul loo iska maray randomly ayuu maarta video ka soo baxay maadaama dadka comment ka bixinayo arkay isagana maarta maybe laga yaabo inuu Manchester taageero yahay sidii uu uga bixiyay ma maleynayaa saadaashiisa laakiin nasiib waxa uu yeeshay isaga qofka saddexaad wuxuu ahaa Usmaan Cabdullaahi Jaamac laakiin marka aad fiirisiin maalmaha ayaa kala horeeyo xilligu Usmaan bixiyay iyo xilligay Amira iyo Maxamed ay bixiyeen saadaasha Maxamed iyo Amira ayaa ka horeeyo runtii waxaan leenahay maarata Usmaan insha Allah kuwa dambe ayuu ku guuleysan doonaa ciyaaraha dambe iyo saadaalaha dambe iyo barnaamijyada dambe oo soo bandhigi doono waxyaabo badan waa idin soo wadnaa haddaad nagu cusub tihiin subscribe noo saara haddaad la joogteena share iyo like muhiim ay noo tahay aragtidiina mar walba muhiim ay noo tahay wixii aragtood qabtaan qoraalka qaybta hoos noogu reeba runtii waan tixgelinaynaa waan aqrinaynaa wixii feedback noo la soo wadaagina aad baad u mahadsantihiin waa inoo video xigo